shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dawladdii hore ayaa wasiirkeeda maaliyadda oo la yaqaanay dawladda hore la yaqaanay oo dawladdan ka horeysay ayaa waxay leedahay nimankani maaliyaddii ku fashilmeen shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay ogaadaan dawladdii hore dawlad maaliyadda integrity maaliyadeed leh ma ahayd su-aasha marka guddiga laftirkiisa xubnaha waxaan wadaaho waa xubnihii xisbiga dawladdaas ka mid aha wada shakhsiyaadka wada oo xildhibaanada ah oo dabcan guddiga ka mid ah waxaa hormuud ka ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda wasiir dawlihii hore maaliyadda xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur wasaaradda wuxuu ka ahaan jiray wasiiruu ka ahaan jiray xilligii oo isagu wasiirka ahaa golaha shacabka golaha shacabka oo anigu baarlamaanka sagaalaad aana kamid ahay saaxiibkii cabdullaahi doctor cilmi oo kamid ahaa mushaar ma qaada 9 bilood shaqaalaha dawladda Soomaaliyeed 11 bilood mushaar ma qaada isaga laftirkiisa shakhsiyadda wadda wax shakhsiyadda la kuwashin garay kara dawladda World Bankigii la shaqeynayay dawladda Soomaaliya oo 80 milyan ugu deeq dawlado kaleeto deeq-bixiyaal ay si bilateral oo dawladka dawladda ay hanaankeena maaliyad ku aamineen ay lacagta ku soo shubeen ay leeyihiin hanaankeena maaliyadda khaldan ee warbixin aan habraaci soo marin oo aan guddiga isku waafaqsanayn oo aan wadan ogol ku imaan aad say u shaqeynaysaa waxaan ka bilaabayaa habraaca loo maray warbixinta la keenay golaha oo laga dooday maalin hore ma waafaqsana habraaca iyo sharciga golaha u degsan haddaan qodob uu kor istaago waxaa lagu xadgudbay qodobka 58aad farqada 5aad ee xoraasaadka oo ciwaankeedu yahay kooramka guddiga waa lagu xadgudbay waxaa lagu xadgudbay qodobka 6aad farqada 10aad ee xoraasaadka oo ciwaankiisu yahay guntanka kooramkana waa lagu xadgudbay kaasoo odhanaya waxaa loo baahan yahay inuu kooram jiro waxaa sidoo kale loo baahan yahay in kooramku dhan yahay marka guddigu go-aan gaarayo cod qaraar ama go-aan taa waa lagu xadgudbayay goobtay ka caddaatay waxaa kaloo lagu xadgudbay qodobka 6aad oo ciwaankiisu yahay codaynta qodobadaas in lagu xadgudbay waxaa daliil u ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo cid walba oo dareynaysa ay ka ogaan kartaa kooramka guddigu wuxuu ka kooban yahay 18 xildhibaan 10 ka mid ah ayaa floorka golaha soo istaagtay oo tiri annagu riboodkan nalooma keenin guddigu kama doodin looma codayn habraaci loogu talagalay oo sharciyadeedna sooma marin taas waxaan u malaynayaa ka hadal male cid walba waa arki karta midda habraaca marka taasaan uga gudbayaa warbixinta lafteeda golaha la hor keenay waxaa loo yeeray hanti dhowrka warqad ka soo saaray uu leeyahay warbixintaani warbixin aan aniga ogahay maaha hadda guddiguna kama ayagu wax ma baaraane hay-adaha ku shaqada leh ila guddigu ayagu hanti dhowr maaha hay-aday la shaqeeyaan bangiga dhexe oo haynta lacagaha iyo dhaqaalaha dalka reserveki dalka ah eedaymihii lasoo jeediyey kuwa ugu muhiimsanaa oo ay kamid ahayd lacag 50 milyan oo Sacuudi Arabiya ka timid golaha hortiisa ayaa guddoonkii bangiga dhexe yimid arrintaana sal waa yeelan weyse arrinta marka la xiriirta warbixinta laftirkeeda nuxurkeeda haddii guddigii ay 10 ka miduhu ay yidhaahdaan waxaan ognahay maaha haddii hanti dhowrku yidhi anigu warbixintan waxba kama ogi haddii wasaaradda maaliyadda oo ay ahayd in wax laga weydiiyo oo nuxurka warbixintan inay ka timaada ay dheheen lama soo ogeysin oo xisaabiyihii guud yidhaahdo aniga ma ogi oo bangigii dhexe yidhaahdo waxa ay sheegayaan waa been oo lacagta accountkay ku jirtaa warbixintaas substancegeeda iyo nuxurkeeda iyo inta la rumaysan karo shacabka Soomaaliyeed aan u deynaya
qodobka saddexaadna shakhsiyaadka wada waayo guddigu maadaama ay ku kala qaybsameen oo weliba majoritigiisa ay yidhaahdeen arrintaa annagu waxba kama ogin shakhsiyaadka wada oo xildhibaanada ah oo dabcan guddiga ka mid a waxaa hormuud ka ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda wasiir dawlihii hore maaliyadda xildhibaan cabdullahi maxamed nuur xildhibaan cabdullahi maxamed nuur wasaaradda wuxuu ka ahaan jiray wasiiru ka ahaan jiray xilligii oo isagu wasiirka ahaa golaha shacabka golaha shacabka oo anigu baarlamaanka sagaalaad aana kamid ahay saaxiibkii cabdullaahi doctor cilmi oo kamid ahaa mushaar ma qaadan 9 bilood shaqaalaha dowladda soomaaliyeed 11 bilood mushaar ma qaadan isaga laftirkiisa shakhsiyadda wadda wax shakhsiyad la kuwashigaray kara wa haddii marka maantay hay-adihii dowladda isla xisaabtan ay furan tahay oo adduunyadii oo shalayna aamini weysay oo marka cabdullaahi wasiirka ahaa aanna aaminin ay nidaamkeenna maaliyadada aamineen oo ay dhaqaalihii ay na siin jireen ay hay-adaha noo soo barsiin jireen ay nidaamkeenna kusoo shubeen oo bangiga adduunka ugu horreeyo IMF ugu horreyso oo European Unionku oo maalin walba aan 100 milyan kala saxiixan sida ay ku imaan karto shaqsigii shala asoo wasiir ah oo dee wasiir hore maahe wasiirkan ka horreeyey doodiisa ah nidaamka lama aamini karo oo lacagaha dowladda waa la lunsadaa doodaas sida uu loo meel marsiin karo ila doodii dood shakhsiyaed ay noqoto guddigii waa yeelan waayeen warbixintii oo warbixinta guddiga haddii ay yeelan lahaayeen guddigaa loo day lahaa laakiin warbixinta hadda shaksi baa yeeshay iyo shakhsiyaadkiina shakhsiyaad credible ah oo lagu yaqaano dhowrsanaan waa noqon waaye ma raba anigu inaan qof saaxibkeeya ama aan magaciisa iyo ama shakhsiyaddiisa aan waxyeelo laakiin wasiirkan ka horreeyey waa laga hadli karaa macnaha warbixin marka laga hadlaayo nidaamka maaliyad laga hadlaayo wasiirkan ka horreeyey muxuu qabtay xilligiisii musuqa dowladda lagu eedeyn jiray see ahaa dhaqaalaha dowladdu see u ekaa mushaaraadkii ba la qaadan jiray ciidanku dhaqaalada mushaarkooda ma qaadan jireen shaqaalaha rayidka ma qaadan jireen golaha shacabka iyo baarlamaanku ma qaadan jireen dadka soomaaliyeeda baa judgmentiga aan u daynayo qodobka ugu dambeeya waxaa weeyaan guddigan wuxuu u shaqeeyaa golaha shacabka ayaa mas-uuliyaddan u dhiibtay waxayna ku shaqeeyaan xeerar iyo shuruuc dalka soomaaliyeed oo leeyahay iyo golaha shacabka oo xiraasaadka ugu horeeya haddii shaqadii loo igmaday ay si waafaqsan shuruucda dalka ay u qabsan oo lasoo baalmaro shuruucdii iyo hanaankii dalku ku shaqeynaya lasoo baalmaro guddoonku xaq ayay leeyihiin su-aashaadi aan rabaa inaan ka jawaabo guddoonku xaq ayay leeyihin inay yidhaahdaan waxaan wax golaha la horkeena ma dhaba xaq ay leeyihin golaha shacabka horta lama hor keeni karo wax nidaamka aan waafaqsanayn oo aan habraaca iyo xeer hoosaadka goluhu ku shaqeeyo aan lasoo marin ma igu waafaqsan yahay waa su-aasha labaad arrintan hadda habraaca loo maray su-aaluhu ka taagan yihiin waxaan rabaa guddigu ma ku saxiixan yahay warbixinta inaad weydiiso guddigu ma ku saxiixan yahay horta inaad weydiiso ila guddigu 18 xubnood ay ka kooban yihiin marka uu warbixin keenayo qodobka 60aad ee xeer hoosaadka wuxuu qabaa in kooramku oo ciwaankiisu yahay guntanka kooramka ee qeexaya tirada ugu yar ee kulan ku ansixi karo inta badan xubnaha guddiga ayaa ah kooramka sidaa oo kale waxaa lagu xadgudbay qodobka 60aad farqada 11aad waxaa loo baahan yahay in kooramku dhan yahay marka guddigu go-aan gaarayo cod sameeyo qaraar kasta ama go-aan kasta qodobka 60aad ciwaankiisu yahay codaynta wuxuu qeexayaa in cod aqlabiyad ah lagu gaaro go-aanada marka ugu dambeysana isla qodobkaas wuxuu qabaa in dadka riboodkaas soo ansixiyey inay ku saxiixan yihiin
riboodka kooramka iyo kooramka iyo codaynta ma guddiga maaliyadda mise golaha shacabka guddigu markii uu majority ku gaaro go-aan ilaan qof walba fikirkiisa meel lama istaagee 18 waa inay saxiixaan warbixintaas soo doctor cilmi sidaas maaha warbixinta naloo keenay aniga lii keeno guddiga uu qaybiyey kuma saxiixina 18 guddi horta kuma saxiixin waana arrintaasina arrin sharciga waafaqsan cidna kuma saxiixin warbixin kasta golaha iskama imaan karto warbixinta guddigu waa inay soo taskiyayaan haddii doctor cilmi leeyahay guddiga doodiisa sheegaysa guddiga waa la farageliyey ee guddiga go-aan uu soo gaaro warbixintan waa soo gudbiyey guddigu markii uu warbixintan ansixiyey maxay usoo saxiixi waayeen si golaha loo keeno taas waa midda habraaca midda xaqiiqda ah haddayaan sheegayo inaan shaksiyadeene doodaan maba jecliba laakiin wasaaradda maaliyadda ayaa eedda la eedeynayana waxaa hormuud ka ahaa wasiirka hore maaliyadda hormuud ka ahaa waa very simple wasiirka maaliyadda hadda wuxuu wasiir ka yahay dowladda madaxweyne farmaajo wasiirka hore oo eedeynayana oo warbixintan faloorka keena xogeynta oo ka akhriyay oo guddiga xogeynta waana dowladdii madaxweyne xasan sheekh oo wasiirka maaliyadda ka ahaa labada dowladood waxay ku doodayaan yaa financial integrity leh yaa hanaanka maaliyadda ilaalshay yaa musuq dalka ka ilaalshay yaa mushaarka dowladda baxshay yaa mushaarka askarta baxshay yaa mushaarka baarlamaanka baxshay yaa adduunyadu aamintay oo ay dhaqaalihii ay hay-ada sii jireen ay u dhiibeen oo ay dhaheen waa la aamini karaa that's the questionka habraaca iyo guddigu kooramkiisa iyo intaa lasoo marsiiyey iyo waa lasoo saxiixay shacabka soomaaliyeed uma baahna shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dowladdii hore ayaa wasiirkeedii maaliyadda oo la yaqaanay dowladda hore la yaqaanay oo dowladdan ka horreysay ayaa waxay leedahay nimankani maaliyadday ku fashilmeen shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay ogaadaan dowladdii hore dowlad maaliyadda integrity maaliyadeed leh ma ahayd su-aasha marka guddiga laftirkiisa xubnaha waxaan wadaaho waa xubnihii xisbiga dowladdaas ka mid aha wada taas macnaheedu goluhu guddigan waa aaminay xubno waaye axsaab weli lama gelin laakiin haddii xubno dowladdii hore ka dhex muuqday oo musuq aada loogu eedeeyo aduguna aa og tahay maxamedow ay dowlad adduunyada aaminay oo musuqa la dagaasha oo wasiirro u xiran yihiin oo agaasimayaal u xiran yihiin oo shaksiyaad u xiran yihiin oo maxkamada saaran yihiin oo adduunyadu tarastigareey oo lacagteeda u dhiibay oo lacagihii dhaqaalihii adduunyada soomaaliya sii jira loo dhiibay ay ku eedeyso musuq taa shacabka soomaaliyeedna waxay u baahan inay gartaan golaha shacabkana markii lahor keena warbixintan habraaca ka sokow wasaaradda maaliyadda waa la dhegeystay hanti dhowrka waa la dhegeystay bangiga dhexe waa la dhegeystay xisaabiyaha guud waa la dhegeystay habraaca marka laga soo tago waxaan qabaa في النهاية waxay tahay in في النهاية xukuumaddii hore wasiirkeeda maaliyadda sideen ku aamini karna warbixin uu keena waay xukuumaddii hore wasiirkeedii maaliyadda xukuumaddii hore ee musuqa ku caanbaxday ee la yaqaanay wasiirkeedii maaliyadda aan ku aamini karnaa yani ay shacabka soomaaliyeed xukuumad lagu aaminay dhaqaalihii soomaaliya la sii jiray su-aashaas saddexaad baarlamaanka waxaa yaala muuqaal xukuumaddii hore ay daba taagan tahay horumarka maaliyadda ay dowladdani ka gaartay hadda xukuumaddii horena ogow waa mucaarad waana dabcigaasaas oo dee qola markay xukunka joogto qolo kala dabcan mucaarad ku ah waana sax dowladnimadaaba saa ku dhisan doctor cilmi oo dabcan xaqiiqda iyo habraaca aan kala saarna yidhi habraaca marka anigu ma qabo dood bada badan inay habraaca ka furan tahay habraacu waa dhintay midda xaqiiqda ku saabsan waxaa xaqiiqa baarlamaanka soomaaliyeed 9 bilood mushaarka inuu doctor cilmi ka maqan yahay asagaa xildhibaan aha baarlamaanka 9aad aniga ma ahayn xildhibaan ka codsan ay loo celin daahfurnaanta jaa haye inta dibra su-aasheeda wuxuu xaqiiq weeyaan biyadhac su-aasheedan u baahanay kaliya yani biyadhac su-aasha habraaca waa kaaga jawaabay habraaca maaha yani wasiir bayle
xisaabta yani in lagala hadlo inuu keenay ahayd xujadeedii maaha inuu yiraahdo yani kutirkutaan bay ahayd musuq waxay ahayd un yani su-aasha wasiir beyle waa kaaga jawaabaya wasiir beyle golaha hor yimiday 3 saac uu khudbeeyey waxaa uu keligiis ma ahayn 3 wasiir uu khudbeysay hanti dhowrka baan ma imaanin laakiin warqad almost kaabaysa doonta wasiir beyle uu qoray waa hanti dhowrka qaranka su-aasheed hadda waa wasiir beyle keliya waa kaaga jawaabaya wasiir beyle su-aashaasaad weydiin kartaa anigu wasiir beyle mihi laakiin waxaan rabaa warbixinta golaha timid iyo wasaaradda maaliyaddu siday u wajahday iyo goluhu soo waarkin aan kuu sheego golaha waxaa yimid wasaaradda oo idin 3 wasiir waxaa yimiday hanti dhowrka ayaa warqad qoray maalin ka hor waxaa yimid bangigii la lahaa lacagtii sacuudi arabiya noo soo dhiibtay nama soo gaaro hadda ogow lacagta dalka waxaa hayo reserveka maamulad bangiga dhexe oo arrin sharciya arrintaas intaasi baarlamaanka waxay ka qanciyeen warbixinta hal number ay uga qanciyeen 7 su-aal oo nuxur u ah warbixinta maali oo guddiga soo gudbiyey ayay guddiga uga jawaabeen waxaa ugu horeeya guddiga shaksiyaadka reportkan keena waxay ku doodayeen 50 milyan ee sacuudi arabiya dowladda soomaaliya ugu deeqday 20 baan imaan bangiga dhexe guddoonkia yimiday waxay yidhaahdeen 30na 2017 la isticmaalay 5na 2018 la isticmaalay 15 external accountiga ku jirta arrintaas oo arrin laga qarci kara maaha dictor cilmiga soo lagama qarci karo waa simple waa 1+1 okay taa marka warbixinta iyo nuxurkeeda baarlamaanku inuu ka doodo maahe iyadoo aan sharciyadii iyo guddigii aan soo marin aysan noo keenin haddii doctor cilmi iyo guddigiisu ay ku guuldareysteen inay nidaamkii soo maraan inay habraaci soo maraan inay wadan ogol ama cod aqlabiyada miday rabaan ha u maraan isagu wadan ogol ku dooday wadan ogol haddii uu jiri lahaa guddiga guddoomiye ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii iskama daba qeylsheen guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii golaha shacabka dhexdiisa iskama daba qeyliya warbixintu si baarlamaanku u ictibaariyo waa inay ama wadan ogol ku timaado ama ay cod aqlabiyada ku timaado habraaca iyo shuruucdana soo marto arrintaasoo doctor cilmiga ma cadda way cadda waxaa soo hartay integrity-ga maaliyadeed ee dalku leeyahay waa soo koobaya waxaa xaqiiqa waxaa xaqiiqa waa ka jawaabaysaa waxaa xaqiiqa baarlamaankii 9aad inuusan 9 bilood mushaar qaadan waaris mushaarkiisi intee hadda laga keenaa mushaarka oo baarlamaankii 9aad looga keeni waayo oo baarlamaanka inta ka batay maya hadda ugu batay oo aqalkii sare jiraa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee shabaabka hor taagan 11 bilood mushaar ma qaadan boqolkoodii dollar dowladdan ka horreysay soo arrinta arrin xaqiiqa maaha records ay leedahay shaqaalaha rayidka in lamida inta baarlamaanka uusan qaadan mushaar ma qaadan ayaduna waa xaqiiqa dowladdan ka horreysay 70 milyan oo deynayay suuqa ka qaadatay taasoo shirkado badan inay kacaan u noqotay sabab u noqotay dowladda hadda jirta $100 suuqa kama soo qaadan made hal deyna sooma qaadan hal deyn ma gelin miisaaniyadda soo dowladda marka haddii ila baarlamaanka iyo dowladdu dalku siyaasada u leeyahay siyaasiyiintii hore ee dowladda hore ee iyagoon mushaarkii baarlamaanka bixin oo kii shaqaalaha rayidkaa bixin oo aan kii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed bixin oo 70 milyan oo deyna ka qaatay ganacsato soomaaliyeeda kacday ay leeyihiin dowladdii aan deynna qaadan mushaarkii ciidankana bixisay mushaarkii shaqaalahana bixisay mushaarkii baarlamaankana bixisay hanaankooda maaliyadeed waa xun yahay oo ay leeyihiin dowladdii hay-adaha dhaqaalaha adduunka ay 120 milyan European Union siis khasnada dalka kusoo shubto waa for the first time ee khasnada dalka lagu soo shubo lacag western ku leeyihiin ila nidaam aysan aaminsaneyn lacag kuma shubtaan dowladda World Bankigii la shaqeynayay dowladda Soomaaliya oo 80 milyan ugu deeq dowlado kaleeto deeq-bixiyaal oo ay si bilateral oo dowladka dowladda ay hanaankeena maaliyadeed ku aamineen ay lacagyeed kusoo shubeen ay leeyihiin hanaankeena maaliyadda khaldan ee warbixin aan habraaci soo marin oo aan guddiga isku waafaqsanayn oo aan wadan ogol ku imaan adal see u shaqaynaysa aan kuu dulmaro arrintaa uu ka celceliyay runtii wax badan in mishaaradu aan la qaadanin xukuumaddii hore inaan ka hadalna maaha sideeda laakiin haddaynu taa qodob yar ka idhaahdo dabcan xukuumaddii hore waxay bixin jirtay mishaaraadkii baarlamaankii 8aad wixii baaqi u ahaa intaasoo jeer baa laga bixiyay oo mishaarooyinkoogii la siiyey samarin garan xilliga ay baaqatee mishaar uu baaqday waa xilligii dalku doorasho gali
taana waxaan qiimayn doonaa xilliga dalkani uu doorasho galo xaaladdu siday noqoto taasaynu barbar dhigi doonaa xaaladda markuu dalkani doorasho galo xaaladdu siday noqoto xilligaasaan barbar dhigi doonaa laakiin sanadkii 13 iyo kii 14 iyo kii 15 iyo xaaladdu caadi bay ahayd sanadkii 16 weeye moogta 2016 weeye muxuu ahaay waxa moogtahay xaaladdu khalkhal gashay dalkana xaaladiisa waad garanaysaa taasan kaga baxaya